السلام على رسول الله أما بعد ولا ريال وحارب إن حقا نقلير وذا حديث وقصاص ذكري إلهي خاصة استغفار ولا ريال والذكر ياشا إلهي كمل ونؤغن فيعا إنه قف مرول بودن بأوكال الدومان نحي أنه سؤغين وخلط بينا دنب السيفود بانقلينا إن الاستغفار مرول بلا إيماننا معلم والبان لا إيماننا والفيعا وإلهي أصانهم إلهي سودن بياشي من نوع العفو استغفارت ولا ريال قفك هدو حلوة بإلهي استغفار وطلبه فائدوين بدن بالغيهلا فائدوين بدن أيا لغيهلا فائدوين بدن بالغيهلا أو كمل إنه إلهي رزق وبركايو إنه إلهي قلبيس واسعي وبلاري وولول والبهار ومن إلهي فايو إلهي وحاسين يا إيال يسين إلهي رزقيس وبركايو استغفارت فائدوين كابدن بالله وحي فرت أبابدا حرن أودا أي كاحرن إي وناك إي برواقات أودا استغفارت ويفتاولا إنا مروا بان إلهي أصول نقون استغفر الله واتوبي أما الأولوغات أفكا كوهينو وندقرق إلهي أن كوع العلم إلهي نوحا نوفريا الدنيا برواقدي iyo macaankay ilaahay adduunka waa nasiin hortiinu keen markii istighfar layna haddaan soo qaadana qisadii ku dhacday imaam Ahmed oo guuraya soo socda magaalada ayay ugu dhacday gobolkii magaalada ugu dhacday masjidkii washaayiga ku tukaday magaalada cidna kama garanayo wuxuu rabay inuu masjidka iska seexdo barina oo ka tago oo hawshiisa safarkiisa xaga sii wato gaardiyaankii masjidka u yimid wuxuu ka yiri waxaan qabanayso inaan seexdaan rabaa bariya meel seexdo ma hayso wuxuu ka yiri waa mamnuuc lama ogola in masjidka laga dhex seexdo ka bax loo haduu sheegi lahaa imaam Ahmed inuu yahay imaam Ahmed muu garanay ninkan gaardiyaanka masjidka ama ninka ilaaliyaha waadiye ka ah masjidka muu garanay imaam Ahmed inuu yahay laakiin haddii uu garan lahaa dadka qaryadan joogto oo dhan uu wada kici lahaayeen oo masjidkan aqalladooda iyo meel walba lagu soo dhaweyn laakiin isagoo magaciisa inuu haadhe oo inuu ku qaraabsado ama magaciisa weyniyo isagoo haadhe inuu wax ku helay oo rabin ayuu imaam Ahmed iskaga baxay masjidkii waardiyay masjidka ilaalinay isagoo soo baxay waxaan arkaanaa imaam Ahmed odayga inuu masjidka uga soo saaray ardayda maxaa ka xagga ardayda hadaba iska seexnay xaggana lama ogolee baxru loo soo riixayo keenay masjidka banaan oday khubusla oo khubuska waxay ama moofada iyo waxyaalaha waxay oo masjidka u dhawaa shayda ka ardayga oo yaaligu xaggan iska seexo magaalada seexda xaggan iska seexo kay barina safarka xagga seexo imaam Ahmed wuxuu arkay oo habeennimadii oo dhanto ninka meeshiisa hawlo joogo wuxuu ka arkay ninkii oo la dhikriga ilaahay oo dhigay mar walba cajiin waxaynayo astaghfirullah imaam Ahmed la xajay subaxnimadii uu ka yiri ilaa goorma waqti ayaa san ku jirta oo istighfar oo ku jirta ilaa nacam goorma ayaa ku jirta wuxuu weligiiba oo ku jira istighfar maalin carabkay muhalmaan waxba kama helin nacam faa'iido miyana ka helin iliga wuxuu yiri ilaahay wax walba ilaahay weydiisto laakiin ducaan buu yahay waliya ducadaas waa maxay ilaahay waxaan weydiisay inuu maroon tus imaam Ahmed inuu maroon tus ilaahay bari ilaahayna waliya muudis imaam Ahmed intuu farxay soo ay wuxuu ka ilaahay ducadaadana ka aqbalay ani ma taqaan ani waxa la yiraahdaa imaam Ahmed ilaahay soo jiiday ayuu hortaada keenay aniga walaaliya istighfartu faa'iidooyin badan bay leedahay qofku inuu istighfar waxay walba ku xidhnaado dhikrka ilaahay hayo faa'iidooyin badan bay leedahay qofka faa'iido dhikriga arab marba ilaahay wax walba nolosha adduunka oo dhan dadku nagu wala adkaa ilaahay waa noo wala furay inaan dhikriga ilaahay istighfartaan ilaalin hayn oo arabkeena aan marnaba kalmaan ilaahay adduunka noo wala furay waniga karnaya fasadika Hasan Basri Imam Hasan Basri hadii karnaya Hasan Basri oo fadhiya fadhi nin baa weyn Hasan Basri oo rizqi wax la eedi baa igu ziyaad maxaa waxay okay istighfar waxay salaam kala waxay Hasan Basri iyal maxay waana isqaanay faysan maxaa waxay hadana istighfar waxay hadana qolka oo tinda Hasan Basri oo amaan qoomad maxaa waxay istighfar in garab jooga Hasan oo dadkii oo dhan ee su'aalaha kala gaarkooda weydiistay nin walba hal qura uu jawaabay istighfar waxay say wax u jira miyana maqalbu ilaahay quraankiisa inuu ku iri
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. xilligaa waa in istikfaarkan waxaynu ilaahay wax walba saaran siinay suu qur-aankiisa ugu sheegay annaguna inaan camalkii waxaynu ilaahayna wuxuu noogu ballan qaaday ilaahay waana siinaya ilaahay marna wuxuu noogu ballan qaaday ma khilaafay laakiinse annaga bini aadan oo iloobayna wax walba xilligaa walaalayaal waxaan nagu talina waxaan nagu waanin lah nafteedana ku waanin lah nafihiinana ku waanin lah inaan dikriga ilaahay hayno ilaahay dikrigiisa inaan xilli walba xusno oo carab ku hayno walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.